munaasabadan doodwadaagga ahayd ayaa madaxda guddiga doorashooyinka ku-meelgaarka ee Puntland waxay la yeesheen qaar ka mid ah dhalinyarada iyadoo lagu qabtay magaalada Garowe kulankan waxaa ka soo qayb galay madaxda guddiga doorashooyinka iyo xubnaha guddiga ujeedada kulanka ayaana ahaa doorka dhalinyarada ay ka qaadan karaan geedi socodka hanaanka dimuqraadiyadda Puntland oo qayb ka ah wacyigelinta ay wadeen guddiga ku-meelgaarka ee doorashooyinka Puntland ee Tibet mas'uuliyiinta guddiga doorashada ayaa su'aalo muhiim ah dhalinyarada uga jawaabayay midaas oo la xiriirta hanaanka doorashada xisbiyada ee Puntland ay doonayso inay u gudubto munaasabadan doodwadaagga ah ee dhalinyarada iyo ardayda jaamacadda ee Boosaaso farcida Garowe ay la qaateen madaxda guddiga doorashada ayaa guddiga uga warbixiyeen dhalinyarada geedi socodka dimuqraadiyadda Puntland iyo kaalinta dhalinyarada kaga aadan dhinacyada ka qaybgalka siyaasadda wacyigelinta iyo cilmi baarista waa kan gudoomiyaha guddiga ku-meelgaarka ee doorashooyinka Puntland Guuled Saalax Barre waxaan hadda aan galaynaa hadduu ilaahay idmo inaan diiwaan gelin codbixiyaasha qof walba oo shuruudda codbixinta buuxiyey inaan u siino fursad inuu soo diiwaan geliyo oo la diiwaan geliyo berito marka waxaa codaynaya marka la gaaro codaynta la gaaro qof walba oo kaarka codaynta haysta sida la isku diiwaan gelinayo waxaasoo dhan tafaasiil badan baan ka bixin doonaa wacyigelin yani badan oo la sameeyo laakiin qalabkii maanta waa inoo yaalaa yani qayb ka mid ah oo hadda aan kusii bilaabayna shaqada qalab casri oo qofka indhaha iyo wejiga iyo qofna uusan laba jeer isdiiwaan gelin karin ayaa inoo yaala marka waxaan hadda u diyaarsannahay mar haddii qalabkii inoo yaalo xeerarkii inoo yaalaan habraacyadii inoo diyaarsan yihiin xafiisyadii inoo furan yihiin waa inaan un hadda waxaan sugaynaa keliya inaan maalmaha soo socda aan ku dhawaaqno xilliga diiwaangelintu ay bilaabanayso gaar ahaan saddexda degmo aan idhi waxaan kasii bilaabaynaa doorasho hordhaca hadduu ilaha yidhaahdo idinka muxuu yahay doonkiinu saaxiibadayna mar raba inaan ka qaato warka ka wada qaado saddex door baa idinku soo koobaya waxaan aniga idinkula dardaarmayo mid waxa weeye aqoon-yaha baa tihiin dhalinyaraa tihiin nidaamkan wuxuu u baahan yahay nidaam la wada raaco oo aan waxba ka khaldanayn ma aha waa nidaam u baahan yani bulsho walba inay iyadu ay u jaangooyso sida ay u nooshahay ay ku fariisiso waxaan marka u baahannahay maalan markaad teesaha qoraysaan oo kale ama markaad maalan samaynaysaan cilmi baaris kala samaynaysaan in aqoontiina kaga qayb qaadataan barnaamijkan maalan sidee bulshadeenna qabyaaladda looga yarayn karaa iyadoo hanaanka xisbiyada badan la isticmaalayo sidee maalan dowrka in bulshadu ka wada qayb qaadato hanaankan loo xaqiijin karaa inaad marka cilmi baarisyo iyo aqoon soo kordhisaan oo buugtiina mataqaanaa teesaha iyo cilmi baarisyadiina kale ay noqoto inaad aqoon soo kordhisaan oo process ku soo kordhisaan oo aad noo timaadaan oo tirahdaan inta yani institutionka weligiisuu jiraya annagu waa isbabedelaynaa hadduu ilaahay yidhahdo laakiin aad timaadaan isugu tirahdaan cilmi baaristaanaa samaynay waxyaalahana soo qabateen meelahana u baahan maaragtay in dib loo hagaajiyo ama waxyaalaha ka idiin qorshaysan siyaalahana la raba inaad maaragtay uga taxadirtaan oo aad maaragtay ku salaysaan markaad go'aamada iyo qorshayaasha aad samaynaysaan aad cilmi baaristan iyo aqoontan ku salaysaan dhalinyaradii ka soo qayb gashay munaasabadan doodwadaagga ah ee guddiga ku-meelgaarka ee doorashooyinka iyo dhalinyarada ayaa dhalinyarada su'aalo kala duwan waxay weydiinayeen madaxda guddiga ku-meelgaarka ee doorashooyinka iyadoona mas'uuliyiinta guddigu su'aalahaasi oo la xiriira arrimaha doorashada iyo nidaamkan Puntland ay doonayso inay u gudubto ee xisbiyada ay dhalinyarada su'aalahaasi uga jawaabayeen Cawle Cali warbaahinta Goobjoog Garowe.